intaan xalay dheelay maxaa la yiraahdaa one speed intaan dheelay kistii aan guriga ijaarkiisa u watay aliga helay hay maxaa sameeyay saaxiib hadda le $5 iyo tuur nin xaaskiisii dilay gabar ninkeedii dishay wiil ba adeerkii dilay arday ba macallinkii dilay وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله يعني يا بني إسرائيل يا هيك أدوك ما أنت تذكر جوجل يا بني إسرائيل كلمة رسالة النبي وحال ويري حاضر هذا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مرة رسالة عام كعب ومتى الإسلام كعب والنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رسوش أنا يجوه رئيسي وحلو سوديري جري النبي والبا خير كيسة أنا وحلا إيسو دري دتك أردن مركز رسالة عن آيات سلاسة هذا هدينو فيرنا مركز دين الإسلام كا مم قطع أو يعني دينه كلا هراء جري دتك هذا شاعنا إلى رئيسين أيوة قلوعيين ما كاكو رئيسا أو أيضا مرجع موتها أو ملاص الله بدا وما حتى إن يلص منتهي باي أقوله waxay rabaan inay ayagu sareeyaan quraankan iyo islaamkan uu hooseeyo laakiin ma soconayso ilaahay baa wuxuu nabigu wuxuu ku yiri waqallabu laka al-umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amru allahi wa hum karihun waxay ku maleegeen oo ku gagadiyeen arrimo oo ay ku joojinayeen diintan waqallabu laka al-umur hatta jaa al-haqq wa dhahara amru allah amarka ilaahay yaa muuqday amarka ilaahay muujintiisa ilaahay ayaa muujinaya kuwa diidan ilaahay iyo diintiisana waxay isku dayayaan inay joojiyaan yuriiduuna an yudfi'u nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu illa an yutimma nuurah marka islaamku meesha uu galo sida uu markiiba wax uga sameeynayo laba tusaalan soo qaadanay oo aan ku soo khulaasaynaya meesha islaam uu ku jiro oo dadku waxa ay ku shaqaynayaan oo islaamka uu noqdo sida uu muuqanayo oo practical ayaan tusaale soo qaadanay laba tusaalan soo qaadanay mid waa xagga dhaqaalaha oo waxaan soo qaadanay wadanka la yiraahdo Afghanistan wadogtii wixii dagaalo lagu qaaday shacbigaas muslimka ah oo seen oo kala ah way dagaalameen way diideen in la gumaysto inta kharash ugu bixiyay iyo inta ciidan loo diray ugu dambeystii wuxuu ku dhamaaday Kaabul markay ka baxayeen reer galbeedku waad wada joogteen leedin ka sheekeyn ma aysan ahayd baabuur baa la daba qabsaday ayaan maqli jirnay diyaarada la daba qabsaday si loo cararay diyaarada dadkii daba qabsaday ay cararay warbaahinta waxay markas lahaayeen dad waxaan ka soo cararnay wuxuush ah oo dadka cuna oo yaani inay wax dilaan ma aan joogi karin dawladooda ma aqoonsan ay lahaayeen waa la fariistay si tartiib bismillaahir rahmaanir rahiim loo yiri taqaalihi wadanka ayaa inta ay haysteen ay isku filaysiiyeen markaas waxay yaa deyn nagu leh hortay wax nagu leh annaga dadka ku wax kula lahaa ee banaanka deynta uga lahaa yay dhayn deyntiino dhan waan bixinaynaa markaas hadda isbuucan waxa la soo dhajiyay Afghanistan oo iska bixisay wixii deyn lagu lahaa oo dhan ay iska bixiyeen haye inaga Soomaali iyo ay xayngal joognaa inaga maxaan ku faanayna maxaa leenahay deyntii ana laga cafiyay oo maxaa laga cafiyay iska dhiibta in laga cafiyo ina iska dhiibta ka fiican ina iska dhiibta fiican maxaa yeelay markaad iska dhiibto qof waxaad noqonaysaa xor ah oo shuruudo aan lagu yeerin karin laakiin markii laga cafinayo inta laga cafinin ka hor imisa shuruud ayaa taala waxaa lagu leeyahay koow horta xilligaas ilaa xilligaas wax shaqaale ah oo aad qaadan karto ma jirto hadda waa wadankaaga ogow dadkaaga oo jaamacadaha soo dhameeyay oo shaqo u baahan oo wax soo bartay warniyo shaqo meesha ma ka raadisaan maya deyn cafinta socotee shaqaale lama qaadanayo koow oo maxay dhahan shaqaalaha qaadanina waayahay ma qaadanayno jaamaca lagu sameeyay inaadan adigu saarta yeeli kareynin shaqaalaha ma qaadan kartid haye maxaa sameynaysaa canshuurta boqolkiiba intaasaad ku daraysaa saanaad yeelaysaa intaasaad ku soo wareejinaysaa intaasaad keenaysaa adi si shuruudo lagu akhrinayo marka dambe hatta kulli waa laga cafiyay ma aha wax lagu dhahayo deynta horta xagee naga soo gashay gaaladu waxay dadka siinayaan waxa la yiraahdo ribo waxay tahay waxaan ku siinayaa midalan $1 milyan aan ku siinayaa oo aad ku bixinaysid 2 sano ama 3 sano gudood haye haddaad ku bixin weydana macnaha dib male way kugu biiraysaa waa lagu sii darayaa waxa kugu biiraysaa intaas haye sanadka intaas kugu biirtay sanadka ku xiga lacagta ma iska keentid maxaan intee ka keenaa anigu
waxay dhisan ma jiro waxay habaysan ma jiro nasaasa ku sii darsala iyadana way kugu qoran tahay balaayiin markay gaarto waxa lagu leeyahay shuruudahaas markaad ka soo baxdo qaara laga dhaafaya qaarka laga dhaafayo kuwii lagu siiyay ma lacagtii kaashka ee adigu ku gashay ma intii dheeriga ahayd ee adan qaadaninba ee korka laga saarsaarayay in kamid oo kulliyada ahayn intaas waa laga dhaafay maxaa laga dhaafay ba qaadan aniga marka hore adil ay ku saartay adin marka waa weliga meel u dhaqaaqin marka ummad iyo sharaf waxa lagu yeeshaa xigmad waxa dhahaysa man la yamliku quutahu la yamliku qaraarahu qofkii aan quudkiisa soo saaran karin asagu aan haysanin go'aankiisa asaga iska male haddaan laakiin adiga quudkaaga haysato laba qof oo siman waxaad noqonaysaan war maxaa inoo dan oon isweydaarsanaa intaas maxaa ina dhex mari kara laakiin markaad noqoto in adiga lagu quudinaayo shuruudii lagu yeeriyaba okay aad leedahay maxaa yeelay waxba ma haysatid marka waxaan ku keenay Afghanistan yani waxay iska bixiyeen wixii deynay lagu lahaa way ku maadsan say u bixiyaan marka waxay u sameeyaan wixii ay haysteen bay tashiishan ترشيد ترشيد الاستهلاك وانت يران هيسن ان تشيلنا هي كو انت اساسا سي waxay u tashiilanayeen deynta iska bixiyaan dhaqaalaha ay sameeysanayaan iyo meesha u socdaan waa dawladii la aqoonsanaa ee dacmiga la siinay ee lacagta la siinay hadii la isbarbar dhigo Masar oo maalmaha kamid dhihi jiray dunya adduunyada dhan hooyo u tahay imisa maanta deyn lagu leeyahay Afghanistan waxa lagu malay marka bal fiir markii la kala dhaqaaqo oo xornimo la doorto iyo in adiga lagu biilo marka doorato saas la kala noqdaa marka islaamku haduu fursad helo awoodaas u leeyahay ogaada reer galbeedku ina masaajid dhisano dib uma arkaan ilaahu guri kasta korkiisa dan masaajid ka dhisno wax dhaway ku haysa ma jirto laakiin waxa dib ku haya islaamun lahu dawlatun tahkum islaam dawlad oo xukumaaya kaas ma ogolaanayaan oo maxay ku diidayaan kaasna wuxuu ummadda islaamka ka dhigayaa ummad jirta oo warkeedu soconaay waa markii dawladnimo iyo xukun u imaado hadii laakiin xukunka laga haysto oo guri ka korkiisa masaajid ka samaysato iska masaajidka ku jira adiga ku haysto dadka qaar waxay u qaateen marka war annaga maxaaba naga maqan soo ma tukanayno islaamku ina tukato bas ma soo degin islaamku wuxuu soo degay walladii arsala rasuulahu bil huda wa diin al haqq li yudhhirahu ala diin kulli ina ugu sareysa la raba ina ugu hooseysa lama rabo adigi macalinka ee dadka inaad hogaamiso laga rabay hadii macallin ugu noqdo ka war oo yaa macallin ku noqonaya midaan ilaahay u sujuudaynin oo ilaahay aan aqoonin aw xukuleey saasiyal haya macallin xaga mar haya macallin xaga fariiso haya warayga leexna dala rabay ilaahay wuxuu ugu talagalay ummadda maxamediyada in ayadoo ummadaha kala celiso oo dhada kii gardan hatta gaalada labada isdagaalaysa gardaran kan gardan ay dhigi karto waraa adiga gardan gaalkaasow adaa gardarane gaalka kale faraha ka qaad wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunu شهداء على الناس ما للشهداء على المسلمين ما ولتكونوا شهداء على الناس دتكو دنا عالم كنا عالم هنا كل انسان ولا جوغ هذه وقدر انتهي دينتا الى عزو دج عداله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط ليقوم الناس بالقسط عداله دينتا لا مات كتبت وحلو سد عداله رسل وحلو سد عداله داس يا وضايا منهج الى قفكي ولا تاس ميدا ايق وحق دقالها Afghanistan oo deynta iska dhigto inaga maxaa Soomaaliyeed inta waxay aan haysano isku ceshano oo inta yar aan haysano aan guntiga dhashay isaga dhigno oo aan si u dhaqmin macaaheeday dadka lacagta haysto kala dhan wixii ku soo galay iska baabiinin duruufta wadankeena aan ku jira la qiyaaso sidii aan deymaha isaga bixin lahayn ummadeena dhaqaalaheena u kobcin lahayn mas'uuliyadaas aynu wasaaran haddaan weligeed laakiin ahano inaan gacanta le hoorsano wax leelayna siiyo weligeed ma xoroobayno hadba si rabaan lagu dhigayaa diintaada iyo manhajkaaga aan isku xukun hadaan ahana waxa leeyahay Allah adiga waa lagu beelaa qof haduu ku beelana warkiisa la qaataa adigana hayo madaysa wax kale ku furan ma jirto marka hadaa ciisiye sharaf la rabo waa in isku tashado oo inaga wax soo saaran taas waa mid miithaalka aan soo qaadanay oo xagga military adduunka maanta waxa la yaaban yahay xarakatu Hamas oo urur dhalinyaro oo dawlad aan ahayn oo dhinac kasta ka xiran yaa dagaalka hadda socdo ogaada ma aha Falastiin iyo Israa'iil ma aha hadii Falastiin iyo Israa'iil bas u ahaan lahaa mar hore kala bixi lahaa oo uu wuxuu dhaxayaa Falastiin intaas yartay meesha joogta iyo caalamka reer galbeedka oo dhan Israa'iil bas ma inay saas waxa ku tusaysa inta markabay soo direen inta saanad ay keeneen
inta wafdi ay soo direen oo leeyahay waan ku garab taaganay haye waan garab taagan Soomaal wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka dagaalku maalinku bilowday markuu tagay asagoo u maleynaya in muddo yar wixii lagu soo afjari doono oo faanay waa tuur wuxuu yiri anu markaa idin la joogo idin lama joogo inaan ahay wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka inaan ahay idin lama joogo waxaan idin la joogaa inaan ahay yahuudi halkaas asalkiisa ka soo jeeda oo sidaas bimaana taageero inta ka badan maxaa la sameyn lahaa bimaana aqwa dawlad fi العالم وهذا military haysata ya intay xoog waxa isugu keento waxay dhahan waan idin la jirnaa maxaa la filayo marka isbuuca koobaad maalmaha koobaadba in la dardaro laana waxa Israa'iil sideedaba dagaalkaadu waxa la yiraahdaa al-harb al-khadifa dagaalka oo dafitaanka marka ugu horeysa haday ku dardari weyso way u dhamaatay arabtii hore waxay kaga guuleysan jirtay marka al-harb al-khadifa dagaalka dardaritaanka dagaalkii ay la galeen 1967 dawladaha Carbeed oo Suuriya iyo Masar iyo Urdun iyo kulli iyo Israa'iil ay noqotay meeqa maalmood uu socday wuxuu socday 6 maalmood waxa loo bixiyay harb 6 ayyam 6 maalmood oo bas dawladii dhanaa waayid al-harb al-khadifa loo qaaday wala wada bixiyay waxay filayeen marka maadaama inta ay tahay dawlad ahayn 6 maalmood soo dagaal xagga buu socday oo dawladda lama dagaal oo taangiye leh dad aan taangiye lahayn oo dhulka hoostiisa ku jira in lagu soo afjari karo malaha يوم أو يومين مال ساسو كذا ما أنت بيقال سيمرة دور يصدون بعد 100 أيها اللي صرت أجيا أول لحظة مع الماضي شنتي مع الماضي أنت مرة يسا يا صرت أجنو علنا يا مدولة تانجي وتيجارة وتامايا وهذا اللي يرى قد هو سكوجرا أو ملك إيمان اللي جرنيني نصب اللهم كمينو لذا كمركا ملك لوجا صباحا مركز أفهم على أي كنوي كرينك ما كنوي موشان meel lagaga imaaday iyo wax ku dhuftay lama garanayo xagga si ugu ogaanay waa laga jira gadaal ayagoo looga imaaday la arkaa markaas waxay dhahay nahnu nuqatilu ma ashbah war waxa aan la dagaalanayna malaha jin aan la dagaalayna wax bini aadam ma waxaan la dagaalayna marka fiir dawladii waaweyna waxay celin waayeen ayaa fi'atun qalila ayaa celisay maxay ku celisay al-islaam marka huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi يعني توقف إلهي اسكو حرا ساسو أول يالناها مركا لما تصالوا قروح بدن وددك إلهي اسكو حرا دقالو هذا تشيشة ميليتري بودي وحوضنا أيها اسكو يعني اسكو تشدا هذا الدولة عربتها يا هوب سميستو على وسيد عليا ويسوق كتان هوبك لكن حماس هوب كذا أيضا سميستها أيوة الدولة هين أيها هوب كان انتهي سميست قد كويس كو سميان أو كيف أنك كان انتهي فرفران أو كو حالي وربع حاجات كانت أنا ده وحين دقال كان قدام بيه كوي لما تنكي dagaalkii dhacay wixii lagu riday waxay dhan oo Gaza lagu riday boqolkiiba 15 ma qarxin madaafiicda la riday boqolkiiba 15 kii aan qarxin dhulka yaalay kiilan aruursan godkoos dilan gelin waxa dagaalku u socdaba waa bakaas hadda kuwa badan waarateen aan qarxin ayagoo la jiiday ma arkino intay qaadaan oo jiidaan ayay gelinayeen intay dib u soo afrikayaan ayay korkeenay yahuud waxa marka hadaad ilaahay isku xirto wad guulaysanaysa in tansurullah yansurkum هذا الشرط بالغ رابس إن تنصر الله إله جاي وقرقارته ينصركم هدو إلهي قرقار عندكم عليك تاس بداية مثل حسوق هذا وطن كان خد بالي لو حياة صومالي أنا مع المهم وحجيبة وأين الأرك جرين أيا نوص وبطين ننا حاس كيسي دلي جبرها نين كيدي شيء ويل بقدر كيدي لي أرض يبقى معلن كيدي لي ماركو محل نقول عاي ظاهرة عجيبة وأن هري وطن كانوا جيرين أي أصوابات وإن إسكوا رئيسته لما كنتوا نبركم كلهم والحكينا لقاها وإن لسنا أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم حكينا لقاها استوينا إسكوا رئيسنا يعني دين الإسلام بالوقت تلك ما بنينا يسوع وإلى القرآن كل حكينا آخرنا ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا قف كرت وحوين عليا ودمير كيس وإيمان كيسة وأخلاق كيسة وقيم كيسة مركب حين نقول عاي أخلاق عن وطن كنا يعني وحلالي يا بعض أي يوصل بيرته ما دعي كرتها مركب سببها مت قار كمل ويبدين هنا نقول كرتهم دروجة أو آدي نوجب بضتها أو يعني دتك اللي يرضعها أما كنين هو استعمالين أم عربض هو استعمالين أما وحكة هو استعمالين إن دروجة بدن أي وطن كانوا كفاف سنتها أو اللي يرضي أي واحد بدن أو كم إذا أي استعمالان
taas waxaan ka hadalnay daroogada iyo waxyaabaha ku saabsan diinteena islaamku sida ay u xaaraantinimaysay oo waxaan soo qaadanay khamrada oo asxaabtu ridwaanu calayhim markii khamrada bariga hore waa la isticmaali jiray laga gooyey yaa ilaahay wuxuu ku yidhi inama alkhamru walmaysir walansaab walazlaamu rijsu min camali shaytaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun iska daaya maandooriyaha waad diibaanaysaan إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر شيطانكم ماشي ضرورة كبلته ماشي قمار وكبته قمار كان هذا بريء هو حتى قانين قمار لبقف أما صدق في قمار ديلان وبهال طرق لي هذا أم أوجو لي هذا ولا جاهلية العقد صارتي اللي بيجري ما أنت موبايل هذا جمع الوضع هيستو أيا برنامج شبه أو قمار أيا كبوحة markaasa wixii qofkii lacagti waa laga qaadanaya waa laga helay imisa caranay kuwa calacalayo oo leh intaan xalay dheelay maxaa la yiraahdaa one speed intaan dheelay kisti guriga ijaarkiisa u watay aliga helay hay maxaa sameeyay saaxiib hadda le $5 iyo tuur maxaa kugu tuuray kaagi maxaa kan ugu dheesh maxaa dhacay markii taas la dheelo dadka xiriir kale la arintaas ee sababta isugu noqda inma yuriidu shaytaan wuxuu rabaa أن يوقع بينكم إنه نحن كتورة إنه يريد الشيطان يوقع بينهم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر خمرة يقمارك علاد أي الشيطان كده حبورا مركا هدي خمرة الاستعمال أما دروغ الاستعمال أما قمار لديرو إلا يزديها يشاككم مجرو إلهي مركا يقولي فهل أنتم منتهون ما إسكنا فيسان مس إسكنا فيسان أرنداس فيري التهديد إلهي وبحيه معها والدين بريا ياي وإذين رونتهاي سأركينو يا لما دين إلهي وحوري فهل أنتم منتهون ومعنى ذو ياي ما إسكدينيسين مسه إسكبدينيسين ما مرك جوابتي إنه قنيسة أصحابتي وحيدها انتهينا يا رب إلهي وان إسكديني مركز حالي كوا أي أقصنيت خمرضو أو أي وجهت ويلل أي عادة مركز سودكتي وحيكون صوت هذا جدتك مركز جدك مدينة جدتك مدة أو خمرضي أو قلقليس عيال الأركاين محيالي فهل أنتم منتهون من إسكدينيسين مسمى مركلين وان إسكديني أي دهان إنك ما أنتوا واكنا آية القرآن وأنا خلينا وردروا هذا من إسكدينيسين ما الفائدة إنه مجرتي بتاعين ورفائدة كوج مجرت وح إلهي إسكناف أو كناي دم كوج مجرته وح إلهي إسكناف كناي أيوك أيار تقبتان هذا إسكدينيسو مركز وحين نقصه فول بشي رمضان ضدك استعماله بالودة سو هذا بالودة وبحين مقدر بالودة واحد في عماه إن أنا فعليا وحقته سيسا قفك بالودة استعماله جاتك يوحي لمدع هدي لي هذا ويل كاجا سكول كنكتا أصلا وساقات أو إسلاق قيلة أنت ماشي قلبتي جوري أدجوجلتان وبوبت حاجة أنتوا سكبليجو لبدي إنه أكثر يستانو إسلاق قيشان قضية صوماليات أو سيدا يلا يبجرو والله هو باتاس هدو ويل كنتوا سواق فريستوي هذا أبى وحنا هذا يستو علينا هل مجن إجسي حاجة الله فريسنا يا دروس يقول هذا عشر كان كو آخر السنة ياه محوله بلا يكون هداد وقال له ديبك عني وهايو ساس ما هذا هذا يقوله مركو وجيه وحنا نبيان مركي لقى الله لنا وحنا ما يسكن أفتان محوله وواحد عم برتي وبالود إسكبت دينكرو وحال يسكبت دينكرو مركب فرصة رمضانك وبالتربية وأخف كل ولقب صدي وقتي واستعمال الجري وسومية ما سمينكرو وإسكن في عمر لأن هذول سميسون كي كبراي مركز dadku way isatkeynayaan qaarkood say soo adkeynaan qaarkood waxa la markii la afuro Allahu akbar meeshii timir laga aadi lahaa balwadi aan soo boobsin ama sigaar aado ama war adeero maanta dhan aad ka soo mareed waxaan isaga dhan iska dhaaftido hadaad iska dhaafto arki doontaa caafimaadkaaga fiicnaan doona lacagtaada ayaa ku beeqaami doonto oo wixii aad ku gidi jirtay ay ku soo haraay waxaan la gadaa iska dhaaf markii la yiraahdo dad waxay dhahan guriga laga beelaa waa sax guriga laga beelaa laakiin guriga kale lagu dumiyaa كان هذي لقى بيلايو كوكلا الوسود دمي أو نن عرورتي سكستي سوته أيام أنتوا ولا صلى حظي مركز عرورتي بيقولوا قيلا أنتوا كبعي كان هذول اسمه كاسو دمي مركز إنك هاك عدستو كإسلامنا دميسو ودمبي مركز هذا بيش رمضان أساس حتى قفل وأذيك عين جار ودن كي نقول أنا نوع الدوني بعد الدروجة ده سيدي أنا وهو تجلين أنا وين عدلين أسكوا كاشن إلهي أفوين كدباتين الله أنا أكرقه ومدى الإسلام الله فهم سيو الإسلام كمال وجنب الله جرجاره ومدى أسرائيل فلسطين دباتين الله يجوش أيجان الله لما يستره عدو وذن الله كقبته ومدى الصوماليين ولا تنمي إسرائيل الله وسود جيو وصلى الله على نبينا محمد وعلى سيدنا والسلام عليكم.